Dadyowga kala duwan ee adduunka ku nool waxa ay leeyihiin caadooyin iyo dhaqamo u gaar ah, waxaana jira dabaaldegyo sanadle ah oo ay qabsadaan. Haddaba qaar ka mid ah dabaaldegyadaasi ayaan idinla wadaagi doonaa ee daawasho wacan. Tomatina ama dabaaldega loo yaqaano maharajaanka yaanyada la isku tuuro waa dabaaldeg loo adeegsado miraha geedka yaanyada kaas oo la isku tuurayo. Waxa uuna ka dhacaa maharajaankani magaalada Bonito ee dalka Spain, waxaana isku soo baxani loo adeegsadaa in ka badan 300,000 oo tan oo miraha geedka yaanyada ah. Tartanka ama maharajaanka loo yaqaan Nakashumo waa dabaaldeg sanadle ah kaasi oo lagu qabto macbadka Sansoji ee dalka Japan. Tartankan ayaa ujeedadiisu inuu qof walba la imaado ilmo yar kadibna uu ka oohiyo isagoo aan cunuga waxba yeelinin. Tartankan ayaa mid soo jiitay dad badan oo ku nool dalka Japan. Martigelinta ama martiqaadka daanyarada dalka Thailand. Dalka Thailand waxaa lagu qabtaa isku soo bax sanadle ah kaasi oo lagu martigelinayo daanyarada dalkaasi, waxaana la siiyaa khudrad iyo cunooyin kala duwan oo daanyaradu ay aad u jecel yihiin. Dabaaldegan ayaa ujeedadiisu si xuquuqda daanyarka kor loogu qaado maadaama ay in badan dadka soo shabahaan marka loo fiiriyo xayawaanada kale. Maharajaanka caruurka boodka Spain waa maharajaan ku qotoma in caruurta laga dulboodo. Tuulada Castellino di Murcia ayuuna ka dhacaa sanad walba hal mar. Waxaa la isku keenaa caruurta dhalatay sanadkaasi jidadka magaaladaasi, iyadoona halkaasi loo dhiga gogol ballaaran oo ciyaalka lagu seexiyo. Kadibna waxaa ka dulbooda rag dhalinyaro ah oo dhar gooni ah ku labisan. Ujeedaduna waxa ay tahay in sharka laga xijaabo iyo balaayada, waa sida ay aaminsan yihiin waalidiinta caruurta dhalay. Tartanka xaasas xambaarka Finland. Tartankan ayaa ka dhaca qaar ka mid ah gobollada dalka Finland, waana isku soo bax ama maharajaan ay ka qaybgalayaan rag iyo dumar. Raggu waxa ay xambaarayaan xaasaskooda masaafadan 210 mitir. Ujeedaduna waa in la ogaado ninka xaaskiisa xambaari kara waqtiga dhibta ay la soo gudboonaato. Dabaaldega xubinta taranka ragga. Magaalooyinka Okayama iyo Kawasaki sanad walba axadda ugu horeysa bisha Abriil waxaa ka dhaca dabaaldegyo ku qotoma xorriyadda qaawanaanshaha kaasi oo ay sameeyaan rag toos u qaawan iyo kuwo aan wax badan u qarsoonayn. Sidoo kale waxa ay soo qaataan astaamo ama asnaam u samaysan sida xubinta taranka ragga, isla markaana ay wareejiyaan fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinkaasi.